ibraahim cali xasan barasaabka gobolka hawd ayaa kormeer uu ku maray deegaanada qaarkood oo hayso biyalaani u qaybiyay waxoogaa booyada oo dhan 5 booyadood kuwaasoo qorshe ahaan ay tahay inay ku sii sugaan inta gurmad biyood oo kale soo gaarayo waxaana kamid ah deegaanadaasi magaalada ina cunayo gumar oo haatan u dheer tahay duruufaha abaarid biyo la'aantani maatida ku nool iyo odayaasha ayaa ka warbixiyay abaarta iyo biyo la'aanta haysata deegaanadan maanta waxaan nahay magaalada ina cunayo oo ay ka jirtay baahi biyood oo aad iyo aad u fara badan marka maanta waxaan loo keenay 2 booyadood oo gobolka uu noo keenay dad badan waxa jira aan gaadiidkii ay macay soo dhaansanayeen uu ka fadhiisto itaalaan uga fadhiisto u soconayn oo dadka kale la rarto jirikaan u dhiibta xaaladda ugu weyn ee jirta waxa weeyaan xaaladda biyaha baa ka jirta oo baahsan imakana biyihii loogu horreeyay wataa imaka loogu shubayo waxaan u baahanahay biyo baadba wax dalculo iyo wax cadada oo iyagu ilaahumba horta marka hore dad iyo duunyaba ilaahumba wax siin kara laakiin xoolaha imaka looma calaalaya dadka in biyo baad wixii loo helo lala soo gaaro barasaabka gobolka hawd ayaa ugu baaqay dhamaanba waxgaradka ka soo jeeda deegaanadan ha ahaadeen qurbo joog ama qolqol joog inay gurmad la soo gaaraan deegaanadan waa magaalada ina cunayo la yiraaho magaalooyinka runtii qadiimka ah ee gobolka hawd ka tirsan bay kamid tahay biyo la'aan baa ka jirta iyadoo ay magaalooyinka la qabaan biyo la'aanta haddana runtii ina cunayo meelaha ugu daran bay kamid tahay maanta gobolka hawd ee xagga biyaha baahida waa laga siman yahay tuulooyinka kale la midka ah baahidu way ka jirtaa laakiin biyo la'aantu dheeraad bay u tahay waxaan rajaynaynaa dadka deegaanka ka soo jeeda ina cunayo ama magaalooyinka joogaan ama dibadba ku maqnaadaan iyana inay guradka qayb ka qaataan oo biyaha loo soo kordhiyo waa waxyaabo aad ka naxayso marka ay dhulka martay kormeerkaad runtii marto marka waxaan runtii aanad ugu mahad celinayaa gudida abaaraha oo kormeerka nagu soo maray runtii ay kamid tahay biyahani runtii imka la shubayo waxaan rajaynayaa inay wixii taalkooda indhahooda waxay ku arkeen wixii taalkoodaana inay runtii ay soo fidiyaan abaarta baahasima ee dhammaan bagayiga Soomaaliland oo haatan aad moodo inay waaga ka dambaysa ka sii adkaanayso ayaa waxay dadka u dheer xanuuno ku jira deegaanada gobolka Hawd ilaa haatan aan helin gargaar caafimaad oo istaba jooga Cabdiraxmaan Samriye TV caalamiga Home Cable TV xarunta gobolka Hawd ee Balli Gobolde